salaan kadib waxaa sharaf weyn ii ah mar kale inaan ku soo dhaweeyo shirweynaha bangiyada iyo maaliyadda ee Soomaaliya insha Allah taala gudoomiyaha qaybtaas qaatay laakiin wax yar oo presentation yar aan isleeyahay daqiiqado yar aan insha Allah taala ku soo koobi doonaa aan dul mari doonaa oo ururka bangiyada wuxuu yahay iyo shirkan wuxuu yahay iyo waxyaabaha sanadkan noo qabsoomay iyo waxyaabaha aan rajeynayno insha Allah taala 2025 ilaa aduun gaarsiiyo waxa aan rabno insha Allah taala inaan noo qabsoomaan slides ka dii aad saartay hal mar next ururka bangiyada Soomaaliyeed waa urur ay ku bixiysan yihiin bahda bangiyada gaarka loo leeyahay oo hadda ah 13 bangi oo Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa sidoo kale bangi kale oo mar dhow laysanka qaataa jira inuu nagu soo biiri doono mar dhow sidoo kale waxaa jira bangiyo kale oo international wadanka jooga ayaka rajaynayna maantana nala jooga ziraacad banki uu kamid yahay inay ayaka naftirkooda ku soo biiraan association-ka ururka bangiyada wuxuu u taagan yahay inuu u qareemo una doodo danaha bangiyada ay leeyihiin ayada oo marayaan dhammaan habraacyada wada tashiga shuruuc ha ahaato ama lobby kalaba ha ahaatee ururku intii uu jiray hadda waxaa maraysaa bangigeena noogu weyn wuxuu jiraa 15 sano oo hadda qaan gaaray intaa bangiyadu way soo tarayeen oo maalinba bangiga ku soo biirayay bangiyada hadda marayaan 13 bangi oo ururka ku bahaysan shaqooyin aad u weyn ay qabteen especially association-ka ururka oo uu kamid yahay shirweynahan maanta aan u joogno sidoo kale ururku wuxuu qabtaa events kale ay kamid yihiin forumyo ay kamid yihiin networking nights si dadka ka shaqeeya bangiyada inuu isku fahmaan stakeholders iyo dadka aan la shaqeynana ay isku fahmaan intaba waxa kale ururka intii uu jiray ugu weynaa flagship program keenan oo ah shirka maanta aan u joogno ee Somali Banking and Finance Conference 2024 shirkan sanadkii hore waxaa daahfuray ra'iisul wasaaraha wuxuuna ahaa shir la isku weydaarsaday fursadaha ka jira dhanka maaliyadda ee wadanka iyo caqabadaha haysta intaba waxyaabo badan ka soo baxay reportkiisina waxaan isleeyahay wax badan oo kamida waa la dhaqan geliyay sanadkan 2024ka sanadkan waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inuu noqdo shir miro dhal ah ee ka soo baxaan wax la taabo karo maadaama madaxweynihii iyo wasiiradii xildhibaanadii dhammaan ay joogaan recommendationska shirkan ka soo baxa in la dhaqan geliyo inaan isku dayno insha Allah taala ururka bangiyada inta uu jiray marka hadaan hal mar aan u leexdo dhanka bankis performance-ga waa jeclaalahay in slides-ka ay saaraan performance-ga sector-ka uu sameeyay aad u kacay mudane madaxweyne oo bangiyada quarter-ka hadda ugu horeeyay ee sanadkan 2024 total assets-ka bangiyada waxay gaareen 1.8 billion US dollars ay gaareen taa oo muujinaysa in si fiican loogu sii kalsoonaanayo systemka iyo nidaamka loogu kalsoonaanayo maaliyadda ee wadanka sidoo kale maalgashiga financing-ka ayadana kor ay u kacday boqolkiiba 22 in ka badan ay kor u kacday maalgelintii sidoo kale investment assets-ka ayakana kor ay u kaceen oo kor u socday trajectory-geeda sidoo kale waxaa aad u kacay lacagtaas aan sheegayo lacag oo bangiyadu ay leeyihiin ma aha ee lacagtiinii waaye waxaa la yiraahdaa other people's money aa la yiraahdaa waa lacagtii adinka noo dhiibateen marka liabilities-ka sidoo kale almost aad u kaceen oo almost liabilities-ka bangiyada dadka lacagta loo hayo almost 1.74% kalsoonida marka muujinaysa customer deposits-ka ay kor u kacayeen ayadana mudane madaxweyne sidoo kale sanadihii dhawaa waxaa ku tilaabsatay bahdan maaliyadda ee wadanka oo bangiga dhexe hogaaminayo tilaabooyin aad iyo aad muhiim u ah one of it waxaa kamid ahaa MBS ama National Payment System kaasoo sahlaya in lacagaha ay bangiyadu si fudud ay isku diraan oo la isticmaalo RTGS real time gross settlement iyo ACH automatic clearing house-ka in la isticmaalo taa naftirkeeda waxaa dhex martay lacag almost 5 billion US dollars for the last labadii sano iyo barkii ay u dambeysay hadda waxaa kaloo la hirgeliyay sharciga IBAN-ka oo ah standard maxaa la yiraahdaa bangiyada ay ku shaqeeyaan oo qaladaadka iyo ka dhaca yareynaya aad mataqaanaa ayadana loo hirgeliyay waxaa sidoo kale oo
national QR code iyo Somali payment switch oo ah hay'ad is leeyihiin bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo bangiyada gaarka loo leeyahay oo ayadana meel fiican hadda maraysa ayadana la qabtay sanadihii la soo dhaafay marka inta uu gudbo recent performance-ga iyo bangiyada dhacay waxaan rabaa inaan u imaado dhanka maxaa sectorkii infrastructure-kiisii si fiican ay u dhisan yihiin maxaa dhiman oo gaabisa iyo waxa jira inaan u imaadaan rabaa gaabiska jira mudan madaxweyne waxaa aad inta badan lagu eedeeyaa in aan mataqaanaa bixinta lacagaha ay yar tahay weli inay yar tahay oo bangiyada I think percentage-ka almost around 30 to 40 in u dhaxaysa lacagaha la baxsho marka lacagahaas in ka badan aan bixi karnay laakiin waxyaabo badana caqabado ah oo ay kamid tahay number 1 kamid ah national ID systemka oo caqabad weyn ku ahaa dhammaan wadanka ku ahaa iyo inaan annakii ku xirano caalamka intiisa kale aan ku xirano national ID-ga fiillahi alxamdu sanadkii hore la hirgeliyay NIRA meel fiican oo asagana maraya bangiyada 13 ah meeshaan waxaan kula saxiixanay heshiis wada shaqeyn ah hay'adda NIRA waxaana ballan qaadnay in insha Allah ta'ala national ID-ga akoonada bangiyada ka furan almost 1.2 million accounts ka furan akoonada in dadkaas ugu yaraan aan national ID-ga aan siino insha Allah ta'ala sidoo kale waxaa jira some other gaps oo ay kamid ahayd for example shuruucda dhankeeda sanadkan iyo sanadkii la soo dhaafay waxaa socday dib u eegis sharciga hay'adaha maaliyadda financial institutions bill kaasoo aan ku darnay inputkeena aan ku darnay haddana baarlamaanka yaala sidoo kale sharciga lacag dhaqidda iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada asagana wuxuu yaalaa baarlamaanku yaala inputkeeni waa ku darnay inkastoo aan weli dhaliil ka qabno haddana waa ku darnay waxaa kaloo jirta in sharciyo kale oo regulations kamid ah liquidity iyo capital adequacy-ga bangiyada si loo ilaaliyo badqabkooda in ayakana la horumariyay marka waxaa sanadkan noo qorshaysan ama loobinka aan ka sameyn rabno madaxweyne inaan kula wadeegnaa rabnaa number 1 waxaa kamid ah ururkan oo ka shaqeyn doona insha Allah ta'ala in la helo wasiirka cadaaladda oo ku faraxsanaa maanta inuu joogo commercial courts in la helo oo ah in la helo maxkamado u gaar ah tijaarada ama ganacsiga u gaara kuwaasoo qaada kiisaska ganacsiga la xiriira qaada hadda waxaa dhacda in kiisaskii ganacsiga la xiriiray waqti dheer ay qaadanayaan maxkamadaha infrastructure-koodana waa ogtahay hal hoola wuxuu ka dhaxeeyaa dhammaan wixii mataqaanaa ha ahaado maxkamadda gobolka maxkamadda racfaanka militariga dhammaan hal hoola ka dhaxeeya marka in la qaado dacwadaadii oo amaba qof wax kaala gooyay ama qof ay waxayna dhex mareen waqti dheer ay qaadanaysaa annagana waxaan diyaar u nahay inaan hoolalkaas wax ka dhisno inaan wax ka maalgelino laakiin waxaan rabnaa initiative-ka in nalala qaadaan rabnaa number 2 waxaa kamid ah collateral registry-ga oo ah in rahanta la diiwaan geliyo bangiyada waxay qabtaan rahan ay qabtaan especially oo dhulka u badan haddana sidaasoo tahay haddii meel xun la isla gaaro ma la awoodo in processkii xaraashka iyo la marsiiyo marka waxaan rabnaa maxkamadihii iyo wixii ka shaqey lahay arrintaas naftirkeeda sidii loo dardargelin lahaa waxaa kaloo jirta bangiyada waxaan dhahnaa waa Islamic commercial banks waa shareeca compliant 100% marka waxaa dulduleel badan ka jira sharciga hay'adaha maaliyadda ay ku dhisan yihiin waxaan sanado badan u loobin gareeynay in la helo sharci gaar ah oo Islamic Banking Act ah oo wadanku oo yeesho wadamo badan oo islaamana ay leeyihiin marka midaan inaan nagala shaqeyso waa jeclaalahan ama sharciga hadda yaala hay'adaha maaliyadda ee bankiga dhexe yaala in sharciga naftirkiisa la waafajiyo shareecada la waafajiyo asaga naftirkiisa la waafajiyo dhanka sharciga lacag dhaqidda mudane madaxweyne waxaan ku darnay talooyin badan aan ku darnay talooyinkaas waxaa ugu muhiimsanaa one of it kamid ah in representation aan helno especially bangiyada iyo maaliyadda inay representation ay ka helaan laakiin waxaan u maleysaa meelihii oo soo maray ama ha ahaato guddiga sare namlag ama golaha wasiirada arrintaas waxba lama qabanin taana ma dhahayno in annaga sharci gaara naloo sameeye shuruucda wadamada kale ay leeyihiin representation oo private sector jira especially wadankan Kenya hadda ugu sokeeya representationka guddiga qaran ee la dagaalanka lacag dhaqidda waxaa ku jira ururada bangiyada waxaa ku jira qareenada waxaa ku jira xisaabiyeyaasha iyo hay'ado kale oo wasiirku maaliyaddu magacaabo ama observers ka noqdo marka waa jeclaalahan in representation rasmi ah laga helo ayadana laga helo ugu dambeyntii waxaan rabaa
insha allahu tacaala shirkan mudan madaxweyne dad loo kala joogo inta badan marka waxaa ballan qaadaynaa insha allahu tacaala next year sidoo kale inuu regionka iyo isku bedelo insha allah oo aan marti qaadno keenana dadka nala asaaga ah especially bank associationska wadamada East Africa ku jira amaba Arab Union of Bankska inaan keenno halkan ku casuuno insha allahu tacaala oo expansion oo dhaco hadda daraasaadka iyo waxa la soo bandhigayo waxay dhammaantood yihiin wax loo kala laakiin inaan u gudubno regionka iyo caalamka waxa ka socda trendiska inaan la qabsano ayadan inaan u gudubno waxaan kusoo gabagabeynaa inaan si mugle aan ugu mahadceliyo tiimkii taabageliyey bangiyada Salaam Somali Bank Dahabshiil Bank International iyo Premier Bank oo la-aantood aysan qabsoomi lahayn xafladan ay qabsoomi lahayn mar kale aad iyo aad u mahadsantihiin inaan soo sharafteen nagala soo qayb gasheen aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.